السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعن وناكسن داود يال halkan waa rajo qaran TV ku soo dhawaada warka rajo qaran qodobada daawan doontaan waxa kamid ah xasarada siyaasadeed ee dalka oo cirka isku shareertay tan iyo hadalkii ka soo yeeray gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya safaf kala duwan oo lala saftay iyo sidoo kale hay'adda u qaabilsan xasaradaha siyaasadda caalamka oo ka digtay xasarad siyaasadeed oo haraysa arrimaha doorashooyinka ee Soomaaliya xog la helay oo muujinaysa khilaafkii ugu xooganaa waqtigan ka dhex taagan Muuse Suudi Yalaxow iyo ugaas Maxamuud ka hogaamiye beelaha Mudulood iyo dagaal hor leh oo laga baqdin qaba ayaa daawan doontaan nin Soomaali ahna waxa uu dad dhimasho iyo dhaawac ugu geystay magaalo ka tirsan dalkaasi Norway wararkii ugu dambeeyay ee falkaas ayaa daawan doontaa sidoo kale saaxiibayaal gudoomiyaha Xaliimo Yaray oo iska diiday inay ka jawaabto su'aalo la xiriira arrimaha doorashooyinka iyana waa daawan doontaa sidoo kale wararkii ugu dambeeyay booqasho wakiilka Taiwan ee Somaliland uu ku tagay Hargeysa iyo kulamo uu halkaas ka wada ayaa sidoo kale saaxiibayaal daawan doontaan afar caruur ah oo ku geeriyootay dab ka kacay guri ku yaala magaalada Boosaaso ee gobolka Bari iyo wararkii ugu dambeeyay dabkaasi ka kacay magaaladaasi Boosaaso booliiska Soomaaliya waxa ay digniin ka soo saareen ardayda galaysa imtixaanaadka 12aad sabtiga inagu soo foodale dibaddana waxa daawan doontaan Masar iyo Itoobiya xaalkooda webiga Niil oo faraha ka sii baxay xilli Itoobiya ay bilowday dhisidda biyo xireen cusub mar kale daawasho wanaagsan saaxiibadeena jecelnahay oo haddii aad channelkeena ku cusubtaa fadlan inagu soo biir subscribe saar like dheh share la wadaag saaxiibada aragtada commentiga hoose inagu soo dheeb ku soo dhawaada qodobadii aad daawateen oo intii hore ka dhameystiran aynu ku bilownay xasarada siyaasadeed ee dalka ayaa cirka isku sii shareertay tan iyo markii gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka federaalka ah Soomaaliya mudane Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan uu ka soo horjeestay hadalkii ka soo yeeray madaxweynayaasha dowlad goboleedyada dalka ee ku kulansan magaalada Dhuusamareeb caasimada dowlad goboleedka Galmudug waxa soo ifbaxay khilaafkii ugu xooganaa oo ka taagan arrimaha siyaasadda dalka iyada oo marka loo kala baxay laba dhinac isla mar ahaantaana la wajahayo doorashada dabayaaqada 2022 gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka federaalka ah Soomaaliya mudane Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan waxa uu sheegay in aysan marnaba aqbali doonin go'aankii ka soo baxay shirkii magaalada Dhuusamareeb ee ku yeeshan madaxda dowlad goboleedyada ee la xiriiray dalka ka dhacdo doorasho dadban isla markaana uu tilmaamay in doorashada go'aan ay ka gaari karaan golaha shacabka dalkana marnaba uu ku laaban doonin doorasho dadban yeelkadeeda dalka ka dhicin doonto doorasho qof iyo cod ah waxa soo ifbaxaya in loo kala baxay laba saf ayaa ka kooban xubno uu horkacaya madaxweyne Farmaajo iyo gudoomiye Maxamed Mursal isla markaana qayb uu ka yahay gudoomiye ku-xigeenka koobaad Cabdiwali Sheekh Ibraahim Muude sidoo kale dhinaca kale ayaa waxa ka soo jeestay ra'iisul wasaare Khayre gudoomiyaha aqalka sare Cabdi Xaashi gudoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha shacabka Mahad Cabdulla Cawad iyo xubno kale waxaana saacadihii ugu dambeeyay baraha bulshada goobaha lagu korfeeyay siyaasadda maqaaxiyaha iyo dadku meelaha isugu yimaadaan aad loogu hadalhayay hadalkii Mursal ka soo yeeray Professor Dalxa iyo Khadiija Diiriyo oo weeraray Mahad Cabdulla Cawad iyo guud ahaanba xasarada siyaasadeed ee dalka hay'adda xasarada adduunka waxay ka digtay sii socoshada doodaha hareeraya doorashooyinka Soomaaliya hay'adda xasarada adduunka ayaa waxay digniin ka soo saartay doorashooyinka Soomaaliya iyada oo sheegtay in sii socoshada xaaladaha murugsan ee dalka Soomaaliya aysan waqtigan uusan wajihi karin qaabili karinna waxa lagu tilmaamay in loo baahan yahay in dhinacyadu ay ka tashtaan wada hadallo sarana ay ka galaan arrimaha doorashooyinka si xal waara looga gaaro doorashooyinka Soomaaliya sidoo kale guddiga madaxa banaan ayaa loogu baaqay in aysan marnaba ku tagdegin go'aanka gaarista ficilada iyo go'aanada la xiriira arrimaha doorashooyinka qaranka markan haddii eegnana xog la helo ayaa muujinaysa khilaafka sii xoogeysanaya ee Muuse Suudi Yalaxow iyo ugaas Maxamuud ka hogaamiye beelaha Mudulood senator Muuse Suudi Yalaxow oo ka tirsan golaha aqalka sare baarlamaanka federaalka ah Soomaaliya ayaa diiday ka qaybgalka shir la doonayay in lagu xalliyo khilaaf soo kala dhex galay hoggaanka dhanka Mudulood iyo siyaasiyiinta qaar oo qayb ka yahay Xaaji Muuse Suudi Yalaxow gogashan oo ka dhici lahayd guriga ugaaska ayuu senator Muuse sheegay in uusan tagi doonin guriga ugaas Maxamuud Cali ugaas isaga oo ku tilmaamay saas u shaqeeya Farmaajo isla mar ahaantaana doonaya in uu cuuriyaamiyo shirka Mudulood siyaasiyiin ka tirsan Mudulood iyo dhaqanka qaarkood ayaa wada dadaalo lagu xalinayo tabashada keentay in shirka baaqda kadib hadallo u badnaa gaf oo dhexmaray senator Muuse Suudi iyo ugaas Maxamuud Cali ugaaska kadib markii lagu baaqay in arrintan si degdeg ah loo xaliyo casuumaad la sheegay in si qaldan loo bixiyay gurmurtiyada shirka oo la bedelay ayaa sabab u noqday in shirka baaqashadiisa lagu dhawaaqo saqdi dhexe 12 bishan iyada oo balantu ahayd in 13 bisha la kulmo inkasta oo maalmo uu dib u dhacay shirka haddana waxa muuqanaysa inay socdaan dadaallo
xoog leh ku wajahan qabsoomidda shirka dowladda Soomaaliya ayaa la sheegay inay shirkan ku bixinayso kumanaan lacag si loo baajiyo khilaafka ugaas Maxamuud iyo Muuse Suudi Yalaxow ayaa imaanaya iyada oo dad badan oo beesha ka mid ay ku tuunsan yihiin in imaamka iyo ugaaska beelaha Mudulood iyo xubno kaleba ay markan lacaga ka qaadanayaan filla Soomaaliya isla markaana ay carqaladeynayaan sidii shirkaasi marnaba uusan u qabsoomi lahayn. saaxiibadana jecelnahay waxaad daawanaysaan qaybaha dhexe ee warka Rajo Qaran TV qodobada Soomaalidana bartamaha ayaan kaga jirnaa markan haddii eegnana wakiilka cusub oo dowladda dalka Taiwan u soo magacaawday xukuumadda Somaliland ayaa soo gaaray magaalada Hargeysa isagoo kulamo halkaasi ka bilaabay. wakiilka cusub ee Taiwan u soo magacaawday Somaliland kadib heshiiskiisa afgarad ee magaalada Hargeysa waxa uu ninkan kula yeeshay kulamo kala duwan wasiirka waxbarashada Somaliland Lowan Chen Hawa. wakiilka Taiwan ee Somaliland ayaa kulan la qaatay wasiirka iyo mas'uuliyiin ka tirsan wasaaradda waxbarashada iyada oo kulankaasina uu ku weerinayay ku-xigeenka wakiilka. kulankaas ayaa looga hadlay iskaashiga labada dhinac ee waxbarashada iyada oo si gaar ah diiradda lagu saaray sidii ay Taiwan uga caawin lahayd ardayda reer Somaliland sidii ay u heli lahaayeen deeqo waxbarasho. waxaana dhawaan la filayay in xukuumadda Taiwan ay deeqo waxbarasho siiso arday reer Somaliland kuwaas oo u safri doona jasiiradan sheegatay inay ka go'otay Shiinaha. Somaliland iyo Taiwan ayaa hore u kala saxiixday heshiis iskaashi oo uu qayb ka yahay arrinka waxbarashada muddadaasi oo maalmihii la soo dhaafay la dareemay. Lowan Chen Hawa waxa hore uu ahaa wakiilka Taiwan u qaabilsan dalka Sacuudi Arabia iyadoo haatan loo soo magacaabay xukuumadda Somaliland. waxaad daawanaysaan wili saaxiibayaal qaybaha ugu horeeya ee warka Rajo Qaran markana aynu eegno gudoomiyaha madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka waxay iska diiday inay ka jawaabto su'aalo la xiriirta arrimaha doorashooyinka qaranka. gudoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka Xaliimo Ismaaciil Ibraahim Xaliimo Yarey oo wax laga weydiiyay sida ay ka yeelayaan ku dhaqanka afarta xeer ee ku jira sharciga doorashooyinka ayaa meermeertay iyada oo haba yaraatay wax jawaab aan bixin. afartaasi xeer oo kale ah qoondada haweenka madalaada gobolka Banaadir asteenta kuraasta gobolada waqooyi iyo deegaameynta kuraasta gobolada shacabka isla marhaantan uu ku jiro sharciga doorashooyinka ay ansixiyeen xildhibaanada golaha shacabka waxaana ay hareer mareen guud ahaanba arrintaasina iska diiday. muranka ugu weyn ayaa ka taagan in guddoonka golaha shacabka uu xeerkaasi ka saaray in ay maraan aqalka sare si uu u ansixiyo iyo in ay maraan saxiix madaxweyne. tallaabadaas guddoonka aqalka sare waxa uu ku tilmaamay sharci darro. siyaasiyiin badan ayaa hore u sheegay in go'aanka guddoonka golaha shacabka ee xeerkaasi afarta ah aysan marnaba ansixinta aqalka sare iyo saxiixa madaxweynaha ay gadaal ka riixayso filla Soomaaliya halka gudoomiyaha Xaliimo Yareyna arrintaasi ay gebi ahaanteedaba ka aamustay. wili saaxiibayaal warka iyaga ayaan ku guda jirnaa qodobada Soomaalidana bartamaha ayaan kaga jirnaa markana aynu eegno nin Soomaali ah ayaa khasaare dhimasho iyo dhaawac ah gaarsiiyay dad ku sugnaa magaalo ka tirsan dalkaasi Norway. Soomaali nin ahaa oo ku sugan magaalada 90 kiiloomitir u jirta magaalada Oslo ee caasimadda dalka Norway ayaa mid ku weeraray 3 dumar ah oo laba ka mid ah Soomaaliyiin halka midda saddexaadna ay tahay cadaan. warbixin booliisku soo saaray hal saac kadib weerarka ayaa lagu sheegay in haweeneydii cadaanka ahayd ay dhaawac gaara u dhimatay halka labadii Soomaalida ahana midkood xaaladeedu liidato. booliisku waxay sheegeen in ninka weerarka geystay la xiray. wili ma cadda sababta weerarka hogaamisay hase yeeshee qaar ka mid ah bulshada Soomaalida ayaa sheegtay in ninka weerarka geystay maskaxda uu ka xanuunsanaa. wargeyska maxalliga ah ee Zarbrook la yiraahdo ayaa wareystay sayga mid ka mid ah haweenka dhibta loo geystay waxaana sheegay in qofka dhibta geystay uu arrimahooda gurigoodana uu ugu yimid. sida warbixinta lagu sheegay haweeneyda oo gudaha guriga ku jirta ayaa dhibaatadan weyn la gaarsiiyay. isku soo wada ururiya Soomaalida ayaa oo ku sugan dalalka dunida ayaa waqtiyada qaar ku kaca falalka noocan oo kala ah. saaxiibadana jecelnahay oo qaybaha dhexe ee warka Rajo Qaran TV ayaa daawanaysaan markan haddii eegnana booliiska Soomaaliya ayaa soo saaray digniino la xiriira imtixaanaadka ardayda ay galayaan gaar ahaan kuwa fasalka 12aad ee Sabtiga inagu soo foodale. taliska ciidamada booliiska Soomaaliyeed ayaa soo saaray digniin ka dhan ah propagandada imtixaanaadka sanad dugsiyeedka 2019-2020 kaasi oo dalka ka bilaabanaya 18 July oo ku beegan Sabtiga inagu soo foodale. sida ay sheegtay wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare sanadkan imtixaanaadka dugsiyada sare waxa u fariisanaya 70,000 arday Soomaaliyeed kuwaas oo sanadkii lixaad ay qaadayso dowladda federaalka ee Soomaaliya. taliska ciidamada booliiska Soomaaliyeed waxa uu diyaariyay 2,000 oo xubnood oo isugu jira saraakiil iyo askar sugta amniga goobaha imtixaanaadka ilaalinta geedi socodka imtixaanaadka iyo daabulida imtixaanka ayaa lagu yiri
yiri war ka soo baxay booliiska Soomaaliya. Haddaba iyada oo laga taxadarayo badqabka imtixaanaadka sanadkan ayaa waxaa jiri kara propaganda iyo qalqal lagu abuuro waalidiinta ardayda Soomaaliyeed. Sidaa daraaddeed waxaa digniin adag gaarsiinayna qof walba oo isku dayo inuu abuuro qalqal imtixaan ayaa la sii raaciyay. Sanadkii hore 2019 waxaa baraha bulshada lagu faafiyay qayb ka mid ah imtixaanaadka sanadkaasi, taasi oo keentay in imtixaanaadka mar kale dib loogu laabto. Markaan adeegnana faahfaahin dheeraad ah ka soo baxay dab 4 carruur ay ku geeriyoodeen oo ka dhacay magaalada Boosaaso ee gobolka Bari. Dabkan ayaa wuxuu ka kacay guri ay degan yihiin qoys danyar ah oo ku yaala magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari, waxaana ka dhashay khasaare dhimasho iyo burbur hantiyadeed. Wararka la helay waxay sheegayaan dabka inuu ka dhashay ama ay ku geeriyoodeen 4 carruur ah oo 3 ka mid ah ay walaalo ahaayeen, waxaana sidoo kale ku basbeelay guriga ay deganaayeen. Goobjoogayaashu waxay sheegeen in dabka uu ka kacay koronto guriga ka dhalatay isla marhaantana uu ku faafay guryaha kale, hase yeeshee uusan khasaare u geysan. Gaadiidka dab-damiska dowladda hoose ee degmada Boosaaso iyo kan kale ee ka mid ka ah shirkadaha isgaarsiinta deegaanada Puntland ee leeyihiin ayaa markii dambe ku guuleystay soo afjaridda. Maamulka gobolka Bari ayaa ka tacsiyadeeyay carruurtan yar ee ku baaba'day dabkan ka kacay guriga ku yaala magaalada Boosaaso ee gobolka Bari. Qodobada Soomaalida ee warka Rajo Qaran TV ayaa daawateen dibaddana saaxiibayaal xaalka Masar iyo Itoobiya ee la xiriira webiga Niil ayaa ka sii daray iyada oo dowladda dalkaasi Itoobiyana ay bilowday inay samaysato biyo-xireenno cusub oo webiga Niil ah. Xukuumadda Itoobiya ayaa shaacisay inay bilowday buuxinta biyo-xireen weyn ee dalkaasi uu ka dhisayo webiga Niil, sida laga soo xigtay telefishinka dowladda. Wasiirka biyaha, waraabka iyo tamarta Sileshe Bekele ayaa sheegay in muuqaaladii dayax-gacmeedku qaaday ee muujinayaan xiddiga biyaha haradaasi ee kordhaya ay run yihiin isla mar ahaantaana la buuxiyo. waxaa arrintan ay imaanaysaa xilli guuldarro ay ku dhamaatay wadahadallo u dhexeeya Masar, Itoobiya iyo Suudaan, kaasi oo la doonayay in lagu xalliyo muranka ka dhashay biyo-xireenka Itoobiya ka dhisanaysa webiga Niil. Guddiga farsamada ee wadahadallada ayaa warbixin ay uga gudbiyeen Midowga Afrika waxa ay ku garwaaqsadeen arrimahan, iyaga oo sidoo kalena ku dalbaday in arrimahan dhexdhexaadintooda dalalka la galo. Isku soo wada ururiyo xaalka Itoobiya iyo Masar ee webiga Niil ayaa aad u sii adkaanaysa. Gudaha saaxiibayaal waa naga intaa war wixii dalkii dibadda naga soo gaaraad ka daawanayseen Rajo Qaran TV. fadlan haddii aad channelkeena ku cusub tahay nagu soo biir, subscribe saar, like dheh, share la wadaag saaxiibada, aragtida commentiga hoose inoogu reeb. Warkan kiisa xigana nabaadiino.